wuxuu leeyahay muxuu yahay xukunka ninka caaya sodohdiis oo ku tilmaama gogol dhaaf xaaskuna ma ka furmaysaa waxaa leeyahay su-aashu waa laba qaybood midna waa cayda midna waa ma furmaysaa xaasku masalada caydu ma bannaana waana dembi ka mida dunuubta kabaa'irta ee waaweyn oo masalatulqadfi weeye hadduu qofkaasi qof beri ka ah waxaa yahayna cadaab weyn baa ilaahay u ballan qaaday waaladiina yarmuxuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati alghaafilaati lucinuu ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya waalaakhira aakhir iyo adduunba nacalad baa ku dhacday naxariista ilahi waa laga fogay cadaabka waxaa u dheer adduunka in maxkamad la geyn karo oo xaddulqadaf lagu dacweyn karo oo inuu markhaati una keeno albayinatu aw xaddun fii dahrika la yidhaahdo ama xaddulqadaf fajriduuhum 80 jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun u noqdo markhaati kiisoo dambe irbad xataa markhaati iyo koob shaah midna markhaati kama noqon karo waa faasiq daacadii iyo xuduuddii ilaahay jebiyey 80 shaabuug iyo jeedalla wuu mudanayaa adduunka aakharana cadaab buu ku leeyahay iyo naclad taasi waa cayda la ysku caaya gogol dhaafka iyo zinada hadday ahayd sodohana dee dad ahal ahaayoo ixtiraam mudnaa oo meel lagaga sii dhacay way ka sii xumaan iyo dembi badan tahay laakiin inta horaaba ku filanba ciqaab iyo dembi qaybta labaad ee su-aasha oo xaasku ma furmaysaa maya laakiin xaq bay u yeelanaysaa furri inay dalbato hadduu diidana ay qaadi iyo fasaqaad aadday xaq u yeelanaysaa waxa furrin dalbashadiiya la diidayna waa min hayri maa ba'sin dhib hadduusan jirin qofka waalidka caayayana qofku ma aqbali karo qofsi sidaa kabaa'irta ku dhacaya caasiga iyo faasiqaana ee daalimka jaa'irka xadgudubka sameeyeyna gabadhu inay ka xadhig furato inay dalbato xaq bay u leedahay laakiin iyadu ma aha caydu wax toos u jebinaya oo nikaaxii burinaya ma aha si toos uguma furmayso laakiin furrin iyo fasaq inay dalbato ayay xaq u yeelanaysaa wabillahi tawfiiq